magaalada tan waxa la yiraahdaa Waqdariya waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu qadiimsan Geeska Afrika ama dhageyga Soomaalidu degto India lafteeda looxa iyo wixii la midka ah waxa la isu raacin jiray badda dabaylaha u ahaa jeeyay oo dabayshu markay xagga ka dhacayso ayaa alaabta lagu dirijo India ka tuuri jirtay dabadna halkaas magaca lagu soo qori jiro India marka la helo waa la heli jiray shayga qof kale Indiana xaggaas oo kala badda laga soo diri jiro markay meelaha ka soo caarido waa la heli jiray qof kale xilli bay ahayd nooca loo kala ganacsado kulanti wacan daawadayaal halkan waxa igula sugan Suldaan Cabdullaahi Darwiish halkan aan ku sugannahay waa magaaladii qadiimiga ahayd ee Waqdariya bal Suldaan soo dhawow waxa tahay dadka deegaanka ka soo jeeda bal magaaladan qadiimiga ah bal warbixin naga sii sadri waan dhawahay aad baad u mahadsan tahay magaalada tan waxa la yiraahdaa Waqdariya waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu qadiimsan Geeska Afrika ama dhageyga Soomaalidu degto tusaale ahaan 1984 ayay ahayd 1884kii xilligii divide and rule Afrika lagu qaybsaday ee ku qaybsadeen gumeystayaashu shirkii Berlin surveyorkii u horeeyay Ingiriiska ahaa ee loo soo diray dhulkii uu qaatay British Somali Protectorate la oran jiray 1886 buu yimi surveyorkii u horeeyay 2 sanadood kadib qaybsigii divide and rule Afrika lagu qaybsaday 1886 markuu yimi halka waa la deganaa 1886 weeyii dad baa deganaa magaalo ganacsi bay ahayd dekad bay ahayd qiyaastii sidaan xogta ku hayo inkastay da'deeda aad u weyn tahay qiyaastii 1 kiiloomitir baa magaaladu dhinaca badda inaga xigtay halkan waxay qalcadii markaa ugu caalamisanayd ee magaalada laga ilaalin jiray qalcadan mid la mid ah waxa laba meelood bay ku taallaa waqooyiga Soomaaliland saylac iyo Waqdariya kaliya ayay ku taallaa qalcadani labada meelood kaliya ku taallaa hadda magaaladii dhammayd waxaan ku sii haynaa daartan hadda la dhaho qalcadda Waqdariya bal maxaa sababay laba arrimood baa sababay Suez Canal markii la furay kanaalka Suez markii la furay dhammaan baddu way faaxday oo biyaheedu way bateen dabeedna waxa degay magaalooyin badan oo kamid ah kuwii bariga la deganaa ayaa degay markii Suez Canal la furay inta ka dambeysana ayana colaadaha sokeeye maanta lafteeda wali ataartooda sii taagan tahay qayb bay ka yihiin sababta baabiisay dadka barakicisay ee sababtay laga gol marka labada arrimood badoo ku soo faaxdo magaaladii la degtay oo bayadii isbedeshay iyo colaadaha sokeeye dadka deriska Soomaalida had iyo jeer dhex mara laba sakay marka waxaan oran karaa waa gurigii ugu shisheeyay wax dadka saaray gurigii ugu shisheeyay magaalada laga difaacay qalcadda ahay qiyaastii 1 kiiloomitir u jiray ee ciidanka magaalada difaaca ay deganaan jireen ayaa ka sii taagan isna inuu dumay waad aragtaa xilliga la deganaa waa ilaa xilligan ku sheegay markii 1886 uu yimi surveyorka Ingiriiska magaalada dhisan bay ahayd oo dadku nool iyo ganacsi ka socdo doonyelo waxa ku noolaa dad iyagu doonyele oo doonyo iyagu iska leeyihiin leh oo jooga oo ka ganacsada oo ka soo dega ayaa joogi jiray oo xiriirka u badan waxay leedahay gacanka cadmeed carabta ilaa lahayd oo badeecad uga iman jireen xilliyada qaar koodna doonyelaha la adeegsadana India lafteeda looxa iyo wixii la midka ah waxa la isu raacin jiray badda dabaylaha u ahaa jeeyay oo dabayshu markay xagga ka dhacayso ayaa alaabta lagu dirijo India ka tuuri jirtay dabadna halkaas magaca lagu soo qori jiro India marka la helo waa la heli jiray shayga qof kale Indiana xaggaas oo kala badda laga soo diri jiro markay meelaha ka soo caarido waa la heli jiray qof kale xilli bay ahayd nooca loo kala ganacsado waxaan aragnaa inay noqotay magaaladii dhammayd bad iminkan magaalada dhammayd baabada tan lafteeda hadeer inkastoo hawada caalamka kululaatay oo biyo yaraanayaan oo hoomi wuxuu batay oo laga yaabo bado inay soo kordhin tan ay badda qarka u saarantay iminka daarta lafteeda